السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كمركلة سودة واده أدي أدا ومهدسنتهين مانتا وتلادو وانا صدن يكودا بيشا ديسمبر لبيو طبانات سنة كاللبدا كون إيا أفري لباتنكا ساعدو أيا كهرسان دلشادا سنة كاللبدا كون إيا شانيا لباتنكا هابي نيوير أيان إدسين ليهاي سنة كسوس عدا إدلان أيا ساعدوه نجاحيقان تيركيس الله نوافجيو كي هوران الشرتيس الله نموتي أيان ليهاي مركا sanad cusub oo dhalanaya sharciyo cusub ayaa ka dhaqangelaya inta badan gobolada Mareykanka. Waxaan ognahay wadanku waa federaal, laakiin gobol kastaba waa u madax bannaan yahay sharciyadiisa gooniga ah ee asagu gobolka gudihiisa inuu samaysto. Minnesota sharci u wanaagsan dadka kireystayaasha ee guryaha kirada degan ayaa ka dhaqangelaya caawa saqda dhexe. Sharcigaasina waa sharci muhiim ah reer Minnesota si wanaagsan u dhageysta. Sidoo kale qaar ka mid ah gobolada Mareykanka oo Minnesota iyo Ohio ay ku jiraan lacagaha saacadii lagu shaqeyn karo lacagta ugu yar ayaa la kordhiyay ilaa 21 gobol. Goboladaasina maxay yihiin? Gobolkan Indiana aan ku noolahay caruurta da'doodu ay tahay 14 iyo 15 waa shaqeyn karaan, laakiin sharciyadu maxay yihiin? Sidoo kale waan idin la wadaagaya. Aan ku bilaabo reer Minnesota. Waxaan ognahay inta badan dadka Soomaalidu guryo ma lahan oo guryo kira ah ay degan yihiin. Dhibaatooyin fara badan ayayna kala kulmaan dadka guryaha iska leh. waa kireystayaal dadku, laakiin qofka landlordka oo guriga iska leh mararka qaar awoodo dheeraad ah ayuu lahaa. Marka hadda sharciga caawa saqda dhaqan gelaya oo maalinta beri ah si rasmi ah sharci u noqon doona oo hore loo ansixiyay ayaa wuxuu yahay sharci xuquuq siinaya dadka kireystayaasha ah ee guryaha kireysta. Marka sharcigan waa idin fiican yahay si wanaagsan u dhageysta reer Minnesota, gaar ahaan waa gobolka Minnesota oo kaliya. Minnesota waxaa ka dhaqangelaya si loo wanaajiyo leeyahay xaaladda guryaha ee dadka kireystayaasha ah. Waxaa jira sharci dhaqangelaya oo isla markaana sharcigaasi uu yahay mid u wanaagsan dadka guryaha kireysta. Waxaa kamid ah waxaa si sharci ah oo awood ugu siinaya dadkaasi inay samaysan karaan midow. macnaha kaba soo qaad hadda Soomaaliya tihiin 20 qoys 30 qoys 40 qoys 10 qoys hal apartmenti ku degan tihiin. Marka intaad isku imaataan hadda kadib wixii ka dambeeya maalinta beri ah guddi ayaad samaysan kartaan, urur ayaad samaysan kartaan. Ururka ka dhisan apartmentigaas ayaad samaysan kartaan laga bilaabo maalinta beri ah waa leedin ogol yahay. Sidoo kale waxa uu ka mamnuucayaa dadka guryahaasi iska leh inay argoosi ay uga soo horjeedaan dadkaas kireystayaasha ah in ay sameeyaan. macnaha kaba soo qaad urur ayaad samaysateen, dacwo hadda waad gudbin kartaan. qaybta Minnesota oo xil saaran guryaha booliska kala wici kartaan. macnaha xuquuqdaasi ayaa hadda wixii ka dambeeya aad leedihiin, iyaguna idinkama argoosan karaan dadka guryahaasi iska leh. sharciyada qabanaya waan idin la wadaagi doonaa. markaas waxay tahay haddii dadkaasi ay dadka guryaha degan ay soo gudbiyaan xadgudubyo ka jira dhinaca guryahaasi, waxay awood u yeelan doonaan inay warbaahinta la xiriiraan, sidoo kalena ay maxkamad ka hor marqaati furaan, iyagoo sidoo kalena ka cabanaya xaaladda guryahaasi ayay sameyn karaan. marka boolis waad wici kartaa, idaacadaha wacan kartaa, waxaad dhigi kartaa bal gurigan aan deganahay eega wax dayactira lagu sameeyo, meeshan biyo ayuu ka soo deynaya, meeshan sidaan waa sida. intaasi oo idilba idaacadaha waa tusi kartaan oo waad sameyn kartaan. sidoo kalena dadka guryaha iska leh oo dadka guryaha ka kireeyo guryaha iska leh iyaguna ma xadidi karaan inta urur oo ay samaysan karaan dadkaasi guryaha degan. sidoo kale waa in ay u ogolaadaan dadkaasi si nabad ah inay ku kulmi karaan, oo markii urur ay samaystaan kadib ay kulmi karaan, xitaa ay kormeer ku sameyn karaan guryaha ay degan yihiin. marka ay guddi samaystaan waraaqo intay daabacdaan, sidoo kale inay dadka degan guryahaasi ay u qaybin karaan, iyo sidoo kalena in ay cadeyn karaan waxa ay qabaan, cabashada ay qabaan inay soo bandhigi karaan. waxyaabahaasi oo idil ayaa xuquuq loo siinaya dadka kireystayaasha ah ee guryaha degan. dadka guryaha iska leh sidoo kalena ma soo rogi karaan sharciyo cusub oo ay ku xadidayaan waqtiga ay dadkaasi kulmi karaan, meesha ay ku kulmayaan, iyo sidoo kalena haddii xitaa xaafadda dhexdeeda ama apartments dhexdooda ay ku kulmayaan, arintaasi ma xadidi karaan dadka guryaha iska leh.
sidoo kalena waxyaabaha laga yaabo inay argosiga ku sameeyaan waxaa ka mid ah dadka guryaha iskale oo laga hor istaagayo hadda in dadkii ururkaasi samaystay kirada ayaan iska kordhinayna. dadka inta badan waan ognahay dadka guryaha iskale kirada ayay dadka isaga kordhiyaan. hadda marka cabasho waad samayn kartaan, kirada kuguma kordhin karaan, sidoo kalena adeegyadii ay ku siin jireen hoos uma dhigi karaan oo adeegyadii aad heli jirtay qof guriga degan ahaanteed. sidoo kalena wax kama bedeli karaan heshiisyadii horey u jiray oo liiskii ama heshiiskii guriga aad saxiixday waxba kama bedeli karaan. haddii qofku uu la xiriiro hay'adaha ku shaqo leh arrimaha guryaha iyo booliskaba micnaha tallaabo kama qaadi karaan dadka guryahaasi iskale. waxyaabahaasi oo idil waxay tahay xuquuqaha la siinayo dadka guryaha degan. xitaa haddii qof sharci la'aan uu degan yahay sida dadka darbi ka soo boodka, micnahoodu booliska intii u wacan ma dhihi karaan qofkan waa sharci darro oo sharci ma lahan, gurigayga ayuu degan yahay. marka waxyaabahaasi oo idil waxay tahay xuquuqda la siinayo dadka kiraystayaasha. marka dadka guryaha iskale ee ku xadgudbo qodobo ka mid ah sharciyadaasi dhaqan galaya maalinta berri ah waxaa lagu amri doonaa qofka kiraystaha oo guriga degan uu ka kireeyey inuu siiyo lacag $1,000 ah. haddii marka xadgudubkaasi markasta oo xadgudub sameeyo $1,000 ayuu siinayaa qofka guriga degan. sidoo kalena lacagta haddii qareen uu qabsado qofka guriga degan uu guuleysto lacagtii qareenkaasi ku bixi lahayd qofka guriga iskale ayaa bixinaya. marka arrintaasina waa arrin wanaagsan. sidoo kale xeeralyaha guud ee gobolka Minnesota wuxuu hadda awood u leeyahay in uu baaro dacwadda uu ku soo oogo dadka ku xadgudba sidoo kalena dadka guryaha iskale ee ku xadgudba dadka kiraystayaasha ah. ma ahan adiga oo kaliya in xuquuq lagu siinayo, qofka kiraystahana xuquuq ayuu leeyahay inaad gurigiisa jajabiso oo kale waxyaabahaas guriga waa lagaaga saari karaa. laakiin adigu waa inaad ogaato waxa aad xaq u leedahay iyo waxa xaq lagugu leeyahay. arrintaas waxaan filayaa in ay kala caddahay oo arrin aan waadaxa ay tahay. marka dadka guryaha degan ee kiraystayaasha xuquuqdaasi ayay helayaan laga bilaabo caawa saqda dhexe sanadka cusub marka uu bilowdo. dhinaca gobolkan Indiana aan ku noolahay waxay wax ka bedeleen sharciyada caruurta shaqaynaysa. markii hore waxaa shaqayn karay caruurta da'doodu ay tahay 16 ilaa 17. hadda waa laga saaray, saacado kooban ayaa inay shaqeeyaan ahayd. hadda waxa ay shaqayn karaan ayaa la leeyahay caruurta gobolka Indiana ku nool ee 16 iyo 17 sano jira. shaqada ay qabtaan dadka qaangaarka ah ayay qaban karaan iyadoo waalidku hadduu rabana wuu kormeeri karaa, haddii uu rabana muu kormeeri karo. hadda waa ay madax bannaan yihiin 17 iyo 16 haddii aad jirto gobolkan Indiana. dadka waaweyn shaqada ay qabtaan ayaad qaban kartaa. laakiin hadda wax laga bedelay 14 iyo 15 caruurta jirta ayaa sidoo kale waxaa la xadiday tirada ay shaqayn karaan xilliga iskuulka uu u jiro iyo xilliga iskuulka uusan u jirin. maalmaha iskuulka uu u jiro caruurta da'doodu 14 iyo 15 ay tahay 3 saacadood ayaa loo ogol yahay oo kaliya inay shaqeeyaan. sidoo kalena 8 saacadood ayaa loo ogol yahay in xilliga iskuulka uusan jirin in ay shaqeeyaan. toddobaadkii waxay shaqayn karaan caruur da'doodu 14 iyo 15 tahay 18 saacadood ayay shaqayn karaan inta xilliga iskuulka ay dhiganayaan. sidoo kalena waa toddobaadkii, laakiin marka samarka oo iskuulada ay fasax yihiin 40 saacadood ayaa loo ogol yahay toddobaadkii in ay shaqeeyaan. sidoo kalena waqtiyada ay shaqayn karaan ayaa jirto. 14 iyo 15 marka aad jirto shaqada ma bilaabi kartid 7 subaxnimo wixii ka horeeya. marka 6 ma bilaabi kartid. 7 habeenimo 1 saac habeenimo wixii ka dambeeyana ma shaqayn kartid haddii 14 iyo 15 aad jirto. laakiin xilliga iskuulka uusan jirin oo samarka lagu jiro fasax yahay 3 bilood ilaa iyo 3 saac habeenimo caruurta waa ay shaqayn karaan. arrintaasina waxaan filayaa arrin u wanaagsan waalidiinta inay tahay oo hadda caruurtooda 14 iyo 15 jira gobolkan Indiana in saacadahaasi ay shaqayn karaan. sidoo kalena sanadkan dhalanaya waxaa laga yaabaa dadka shaqeeya paycheck-giina inay lacag ku korato. maxaa yeelay waxaa wax laga bedelay canshuurta gobolka uu ka qaato dadka shaqeeya. halka ay ahayd 3.5% boqolkiiba hadda waxaa laga dhigay 3% boqolkiiba ama 3 boqolkiiba ayaa laga dhigay. marka lacag fara badan haddii jeegaada aad ku aragto laga bilaabo toddobaadka soo socda micnaheedu waxay tahay gobolka Indiana ayaa waxa uu yareeyay canshuurtii laga qaadi jiray dadka shaqeeya. marka waxaa laga yaabaa lacagtaaduna inay korodho haddii aad shaqayso oo paycheck-gaada lacag dheeriya aad ku aragto.
gobolka Illinois oo kale sharciyada ka dhaqangalaya waxaa ka mid ah haddii aan soo koobo driving license-ga 8 sano ayaa laga dhigi doonaa halka markii hore 4 sano uu ka ahaa sidoo kalena qofka haddii gaari laga xado number plate-ka ama taargada marka uu bedelanayo lacag lagama qaadi doono oo free ayay ahaan doontaa laakiin waa inuu cadeeyaa in gaariga laga xaday sidoo kalena dadka gaarigooda la towgareeyo gaariga haddii aad meel qaldan ku baakimato ama aad dhigato oo laga towgareeyo markii hore ilaa iyo lacagta gaarigaasi aad ku soo furanayso aad ka bixiso macnaha laguma ogolaan jirin inaad gaarigaasi aragto oo gudihiisa waxaad kala soo baxdo laakiin hadda sharciga gobolka Illinois ka dhaqangalaya waxa uu yahay in gaarigaasi haddii waxyaabo muhiim ah ay kugu jiraan sida kaarkii caafimaadka ama social security ID kale in lagu ogolaan karo adigoo gaarigaada wali lacagtii aad ku soo furan lahayd aadan bixin in gaarigaada waxyaabaha muhiimka aad kala soo bixin karto gobolka Illinois 21 gobol ee Mareykanka waxa ka dhaqangalaya minimum wage wax la yiraahdo waa lacagta ugu yar ee saacadii qofku uu ku shaqeyn karo waxaana sidoo kale aan ognahay federally in ilaa iyo sanadkii 2009 Congress-ku uusan meel marin sharci lagu kordhinayo lacagta saacadii qofku uu ku shaqeyn karo waxa ay taagan tahay $7.25 federal laakiin goboladu waa ay kordhin karaan lacagaha saacadii looga shaqeynayo goboladaas 21 gobol ee kordhinaya lacagaha waxay kala yihiin Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, New Jersey, New York, Ohio, Rhode Island, and South Dakota, Vermont, Virginia, Washington State lacagaha ay ku kordhinayaan sidoo kale waxay kala yihiin Alaska lacagta saacadii looga shaqeyn karo waxa la gaarsiiyay $11.91 halka Arizona sidoo kale la gaarsiiyay $14.70 halka waxa sidoo kale California la gaarsiiyay $16.50 sidoo kalena Colorado waxa saacadii lacagta looga shaqeyn karo ugu yar ay tahay $14.81 gobolka Connecticut saacadii lacagta ugu yar ee looga shaqeyn karo waa $10.35 Virginia lacagta ugu yar ee looga shaqeyn karo saacadii looga shaqeyn karo waxay tahay $12.41 Washington State saacada lacagta ugu yar ee saacadii looga shaqeyn karo waxay tahay $16.66 Delaware lacagta ugu yar ee saacadii looga shaqeyn karo waxay tahay $15 waxa sidoo kale lagu kordhiyay $1.75 sidaad aragtaan Illinois lacagta ugu yar ee saacadii looga shaqeyn karo hadda waa $15 ayaa lagu kordhiyay Michigan oo kale lacagta ugu yar ee saacadii looga shaqeyn karo waa $10.56 Rhode Island waa $15 lacagta ugu yar ee saacadii looga shaqeyn karo South Dakota sidoo kalena lacagta ugu yar ee saacadii looga shaqeyn karo waa $11.50 Vermont lacagta ugu yar ee saacadii looga shaqeyn karo waa $14 iyo waliba 1 cent sidoo aragtaan Nebraska oo kale waa $13.50 waxa lagu daray $1.50 sidoo aragtaan New Jersey lacagta ugu yar ee saacadii looga shaqeyn karo waa $15.49 New York oo kale lacagta ugu yar ee saacadii looga shaqeyn karo waa $15.50 sidoo kalena magaalooyinka qaarkood sida New York City, Long Island iyo Westchester waxa looga shaqeyn karaa $16.50 magaalooyinkaas waa ka lacag badan yihiin Minnesota oo kale lacagta ugu yar ee saacadii looga shaqeyn karo waxa hadda la gaarsiiyay $11.13 Missouri lacagta ugu yar ee saacadii looga shaqeyn karo waxay tahay $13.75 $1.45 ayaa lagu daray Montana oo kale waxa lacagta ugu yar saacadii looga shaqeyn karo waa $10.15 sidoo kale gobolada qaarkood waxay dhaqan gelinayaan telefoonka adigoo gaariga ka xaynaya in hands free phone wax la yiraahdo oo telefoonka aadan gacantaada lagu arki karin xilliga aad shaqaynayso gobolada hadda January 1 sanadka 2025 uu ka dhaqan geliyo waxay kala yihiin Colorado iyo sidoo kale Missouri laakiin goboladan kale oo aragtaana horay ayuu sharcigaas uga dhaqan galay xilliga aad gaariga wadayso inaan telefoon wax gacantaada aan wax telefoona lagu arkin marka aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta arrimahaas muhiimka oo sharciyada dhaqan galaya sanadka cusub ee 2025 ayaan rabay inaan idin la socodsiiyo mar kale waxaan idin leeyahay sanad wanaagsan iyo happy new year intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waro idin la sida iyo nabadgelyo